مسجد كمدحتويدا أيو مدحوينها dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kula tukaday qaar ka mid ah bulshada siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan dawladda culimada ayaa salaada kadib la wadaagay madaxda iyo dadkii kale ee masjidka ku sugnaa kelmado baraarujina oo u badnaa isku duubni iyo in lala shaqeeyo madaxda qaranka oo qodobka diinta ay ku taagan tahay waa cabsida Ilaahay qodobka dawladnimada ku taagan tahay waa noo sheego ah in madaxda talada haysta laga dambeeyo la adeeco calaykum bis-sam'i wat-taa'a ayuu maqal inaad maqashtiin madaxdiina oo adeecdiin ayaa dushiina ah buu yiri marka labadaas dardaarno taqwada Ilaahay iyo kala dambeynta madaxdan laga dambeeyo la adeeco ayuu nabigu nooga tagay calayhi salaatu wasalaam oo maanta kale ta waliba noo dhiibay maantana ogaada oo waa maalinta Ilaahay uu yiri al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina maanta ayaan idin dhameystiray maaratay diintii idin dhameystiray nicmadeedina aan idinku taamiyalay diinta islaamkana aan raali idinkaga noqday marka maalintaas marka dardaaranka nabiga oo noo dhiibay waa dhameystirka diinta waay waa dhameystirka dawladnimada waay waa dhameystirka horumarka ee amniga istiqraarka wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi salaad iyo wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta Soomaaliya mudane maxamuud cabdulqaadir hilaal ayaa munaasabada ciid ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed dhamaan ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ayaan leeyahay waxa Ilaahay mahadiye ah inaan maanta nabad ku ciidnay maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan muslimiintu inay muujiyaan ay tahay shacairta islaamka kamid ah ummadda Ilaahay uu untay oo islaamnimada ku manaystayna hadiyad ooga dhigay waxaan rajaynayaa in ummadda shacabka Soomaaliyeed maanta ay isku hambaleeyaan tahniyadan weyn waxaan ku baraarujinaynaa insha Allah taala ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay subhanahu wa taala ciidiisana nabad nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo duu Ilaahay ka raali noqdo iyo nabad ayaa national nuugalada Soomaalida tiraahdaa nabad in aan ka wada shaqeyno inaan yeelano dawlad dhisan xoog leh inaan yeelano insha Allah taala midnimada inaan ka shaqeyno iscafiska inaan ka shaqeyno in aan dhidubada u taagno dawlad hadii aanan dawlad jirin shacabna ma jiri karo waxaan ummadda Soomaaliyeed runtii muddo badan dagaalo iyo dhibaatooyin ku soo jirtay laakiin hadda ka baxaysa insha Allah taala aan ku boorinayaa inay iscafiyaan in waxyaalaha ummadda kala qaybinaya la iska cafiyo wixii hore dhacay waxa dambena laga digtoonaado la iska dhaafo sida qabyaaladda oo kale iyo kala qaybsanaanta oo ummadaha u keena inay baaba'aan oo daciifaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ciid mubaarak hal is cafiyo muxidiin macallin cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya